السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان أرضي ملك السوء أتشوكتان مركلة يكسو دواذا كلاس كيني بيولوجيها هي شبكة أرضي كاب عشر كينا اللواد مانتا كلاس كينا بيولوجيها وحي نكو قادم دونا the character of living things أو dabeecadaha uu leeyahay nooluhu oo inta badan lagu kala saaro waxa noolaha iyo noolaha oo markaan isweydiinayno shayga noolaha iyo noolaha waxa jira dabeecado u dhaxeeya oo uu leeyahay nooluhu oo uu kaga duwan yahay noolaha guud ahaan dabeecadahaasi oo toddoba qodob ayaynu cashirkeena maanta aynu ku qaadan doonaa laakiin ka hor bal inta aynaan gelin cashirka gudihiisa waxaynu marka hore isweydiinaynaa aimka ama objective cashirkeenan aynu ka leenahay oo ahaan doona afar qodob kow in aynu eegno the main characteristics of living things oo arday kastaaba maskaxda ku hayo dhammaan dabeecadaha uu leeyahay nooluhu qodobka labaad collect the various materials and classify into living and non-living inuu ardaygu awood u yeelan karo in uu samayn karo ama uu kala saari karo dhammaan waxyaalaha uu soo ururiyay inay yihiin noole iyo inaanay ahayn markaasi oo ay yihiin noole way qodobka saddexaad waxaynu sameynaynaa markaasi identifying new animals and plants performing this character waxaynu isweydiinaynaa markaasi in aynu helno dhirtii iyo xayawaankii kuweebaa markaasi buuxiyey oo yeeshay dabeecadihii markaasi noolaha qodobka ugu dambeeya oo aynu qaadanayno point the localized movement of plant qodob aynu isaga si gaara u xasuusnaan doono oo dhaqdhaqaaqa jooga ee inta badan ay leedahay dhirtu afartaa qodob ayaa inta badan noqonaya objective-ka aynu ka leenahay cashirkeenan maanta ee lesson 2 waaye haddaynu haddaba u gudagalno cashirkeenan iyo waxa uu ka hadlayo iyo toddobadii qodobba marka hore markaynu isweydiino noolaha iyo noolaha farqiga u dhaxeeya kaliya waxaynu heli karnaa in aynu sameyno dabeecadaha ay ku kala duwan yihiin noolaha iyo nooluhu laakiin xaqiiqo ahaan sida aynu wada ognahay waxa aad u adag in aynu define garayn karno ama aynu caddayn karno waa maxay nololi laakiin marka aynu doonayno inaynu ka jawaabno maxay noloshu tahay kaliya waxaynu soo qaadanaynaa dabeecadaha ay leedahay noloshu ama uu leeyahay nooluhu ee uu kaga duwan yahay waxa la yiraahdo noolaha life is difficult to define saynu wada ognahay waa waxa adag inaynu qeexi karno waxa la yiraahdo nolosha laakiin haddana we can however define it through observations and activities waxaynu ku qeexi karnaa kaliya inagoo sameyno observation ama activity that are carried out by the living things oo dabeecadaha ay sameynayaan markaasi noolayaashu way haddaba dabeecadihii ay noolayaashu sameynayeen marka aynu eegno waxay noqonayaan dhammaanba toddobada dabeecadood ee nooluhu uu leeyahay ee uu kaga duwan yahay waxa la yiraahdo noolaha the following are the characteristics of the living things aynu dabeecadihii haddaba aynu u gudagalno dhammaan waxa halkan inoo soo socdaana waa toddobadii dabeecadood ee uu lahaa nooluhu way qodobka koowaad marka aynu leenahay shayga noolaha nooluhu waxa uu sameeyaa respiration oo qodobka koowaad ee uu kaga duwan yahay waxa la yiraahdo noolaha this the breakdown of wood to provide energy muxuu yahay respiration asalkiisu muxuu noo qeexayaa macnaha respirationku waxa weeye the breakdown of wood nooluhu inuu burburiyo cuntada to provide energy so uu helo tamar and the energy released is used for various activities tamarta uu ka helayna uu isticmaalo markaasi activity-ga kala duwan ee uu leeyahay in the organism nooluhu qodobka labaad oo dabeecadda labaad ee uu leeyahay nooluhu ee uu kaga duwan yahay noolaha waa gaseous exchange nooluhu wuu neefsadaa laakiin sida aynu wada ognahay nooluhu ma neefsado haddii dabeecadda yeeshana shayga waxaynu oranaynaa waa noole ama waa living thing way gaseous exchange oo qaadashada naqaska nooluhu uu qaadanayo oo taking inka iyo markaasi saaritaanka uu naqaskii dib ugu soo celinayo ee taking out-ka
ama loo yaqaano inhalation iyo exhalation. Taking in and out of gases, isbedelka naqaska ama gases exchange-ku waa taking in and out, inuu nooluhu sameeyo inuu qaato soona saaro gasaskii through a respiratory system isagoo isticmaalaya markaasi respiratory systemkiisa. dabeecadda saddexaad ee uu leeyahay noolaha ee aynu ku xasuusan karna waxaa ka mid ah nooluhu wuu dhaqdhaqaaqaa, laakiin marka aynu idhaahno ma noole isagu wax dhaqaaqa ma laha. waayi nooluhu wuxuu samayn karaa movement oo ah qodobkeena saddexaad. movement haddaba muxuu yahay ama dhaqdhaqaaq haddaynu isaga laftiisa macno ahaan aynu sharaxno waa is the movement of animals from a place to a place and this type of movement is called locomotion. dhaqdhaqaaqa inta badan waxaa la yidhaha dhaqaaqa uu nooluhu uu samaynayo ee uu kaga tegayo meel kalena uu tegayo. inta badanna dhaqaaqa noocaasa waxaa loo yaqaanaa sida aynu macno ahaan halkan ku wada arkayno locomotion. waa is the movement waa dhaqaaqa ay samaynayaan of animals xayawaanadu from place to a place, uu meel ka tegayo meel kale uu tegayo. and this type of movement noocan dhaqdhaqaaqa ana is called a locomotion, waxa loogu yeeraa ama lagu tilmaamaa inuu yahay locomotion. but majority of plant marka aynu eegno laakiin xagga dhirta move only certain part, dhirta keliya waxaa dhaqdhaqaaqa qaybo yar oo ka mid ah geedkaasi ayaa dhaqaaqa. and it's called a localized movement, keliyana waxay sameeyaan iyagu dhaqdhaqaaqa meeshiisa taagan, waxaana lagu tilmaamaa ama loogu yeedhaa localized movement oo macno ahaan noqonaysa dhaqaaq aanu geedkii meeshiisii aanu ka dhaqaaqayn laakiin certain ka mid ah geedka ay inta badan ay dhaqaaqayaan. dabeecadda afraad ee uu leeyahay nooluhu waxaa ka mid ah reproduction, inuu samayn karo taran, inuu noolahani uu tarmi karo. reproductionka inta badan waxaa la yidhaahdaa taranka ama waxaa la yidhaha continuation of species, iyada oo la sii wadayo jinsigii nooluhu uu ahaa. waa is the formation of new individuals, waa soo saaritaanka la soo saarayo new individuals shakhsiyaad cusub of a species oo jinsiya ah. and it shows a continuation of existence of a species and growth of its populations, taasi oo ay keenayso marka la soo saaro noolo cusub in ay keento ama ay samayso continued existence of a species, noolayaashii sii jiray in ay markaasi ay sii socdaan jinsigoodii. haddii noolaha jinsigiisii uu sii socdana noolihii waxa uu samaynayaa markaasi the growth of its population, in tiradiisa iyo cadadkiisiba ay bataan. waaye qodobka shanaad waa nutrition. nutrition macna ahaan waxa weeyaa waa quudashada, oo haddii shaygu noolo uu yahay waxa uu samaynayaa quudasha ayuu samaynayaa. laakiin haddii shayga aynu nidhaahno ma noolaha ah waa dabeecadda isna uu kaga duwan yahay, ma nooluhu isagu waxba ma quuto. laakiin hadduu shaygu wax quuto oo uu sameeyo nutritionka ama feedingkii uu sameeyo waxaynu ku tilmaamaynaa shaygaasi inuu yahay noole. waayo nutrition haddaba maxay iyadna macno ahaan ay noqonaysaa? waa is the process, waa qaabka by which organisms obtain energy or food, waa qaabka noolayaashu ay ku helaan cuntada ama tamarta, oo tamartan ay helayaan waxay inta badan ay u jirtaa in form of food, cunto ahaan ayay ku qaadanayaan si ay uga faa'iidaystaan for the growth and repairka uu jirkiisu samaynayo iyo koritaanka nooluhu uu ku korayo. dabeecadda lixaad waxa weeyaan irritability waxaa inta badan loo yaqaanaa waa ability to sense, awoodda nooluhu uu u leeyahay in uu dareemi karo changeska ka jira environmentka, sida tusaale ahaan coolka, touchinka, pressureka, heatka, fearka, waxaasoo dhan. markaa awoodda uu nooluhu uu u leeyahay wax kasta oo stimulus ah oo kaga yimaada deegaankiisa inuu ka jawaabi karo ayaa waxaa la yidhaahdaa irritability ama la yidhaahdaa the ability to sense. the ability of organisms to detect. irritability macnaheeda haddii aynu sii gudagalnaynu define garayno waxay noqonaysaa waa the ability waa awoodda of organisms noolayaashu to detect, ay ku detect gareeyaan ama ay markaasi ay ku ogaadaan and response, jawaabna ay kaga bixiyaan to a change, isbedelada markaasi ka jira halkee in the environment, deegaankooda markaasi had iyo jeer ka jira. way dabeecadda toddobaad oo ah
qodobka toddobaad ee inoo soo gabagabayn doona cashirkeennan aynu ku eegaynay the character of living thingska oo ahaa 7 dabeecadood ayaa waxaynu eegi doonaa qodobka ugu dambeeya ee toddobaad. qodobkan toddobaad wuxuu inoo sheegayaa growth and development, nooluhu inuu samayn karo koritaan, inuu leeyahay growth oo ah dabeecadaha uu leeyahay inta badan nooluhu ee uu kaga duwan yahay waxa la yidhaahdo ma noolaha. waayo waxaynu ognahay shaygu haddaanu noolo ahayn in aanu samayn wax la yidhaahdo koritaan. all organisms increase in size, waxaynu wada ognahay in dhammaan noolayaashu ay sameeyaan increase in size, in size-kooda iyo xajmigooda uu kordho oo ay bataan, and thus they grow. taana macna ahaan waxaynu uga jeednaa way koreen ayaa aynu leenahay. marka the increase in size-ka uu nooluhu uu sameynayo iyo development-ka ayaa markaasi isaguna waxa uu yahay dabeecad koritaan ah oo muujinaysa in noolahani uu size-kiisii u weynaaday, maadaama uu size-kiisii gradually uu usii weynaanayo marba marka ka dambeysa waxaynu ku tilmaami karnaa nooluhu inuu sameynayo markaa growth and development. qodobkaasina waxa uu ahaa qodobkii toddobaad ee inoogu dambeeyey 7 dabeecadood ee aynu ku soo qaadanaynay faraqa u dhaxeeya marka aynu leenahay character ahaan noolaha iyo ma noolaha, oo aynu ku soo baranaynay qodobka ugu muhiimsan waa maxay shayga noolaha ah, dabeecadaha uu leeyahay ee uu kaga duwan yahay waxa la yidhaahdo ma noolaha. taasi aynu maskaxda ku hayn doono in ay jiraan markaasi 7 dabeecadood. 7 dabeecadood shayga yeeshaana uu noqonayo living thing, shayga 7 dabeecadood aan yeelano uu noqonayo markaasi non living thing ama shay markaasi ma noolo ah. xiisadeennii labaad iyo classkeennii labaad ee biologyguna maanta halkaa haynoogu joogo. waa aniga iyo injineer guuleed oo idinkaga tegayna sidaa iyo nabadgelyo.